iyadoo maalmihii u dambeeyay ay howlo daayactir ay ka socdeen garoonka weyn ee Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama ayaa waxa saaka telefishinka caalamiga ee SBS TV u kuurgalay habsami socodka shaqo ee ka socota garoonka Xaaji Daahir Stadium. Garoonkan oo in muddaaba u xayirnaa xaq dhaqaale ayaa waxa iska kaashaday qurba jooga gobolka Awdal iyo dadweynaha degan magaalada Boorama. haddaba waxaa halkaasi kula kulanay iskuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal Xasan Siciid Xasan Dheeldheel ayaa ka warbixiyay habsami socodka garoonkan iyo waxyaabaha u qabsoomay waxaana uu sheegay ilaahay baa mahad iska leh waxaan maanta ku sugannahay Xaaji Daahir Stadium howlaha intii ugu dambeysay awadno dhalinyartaasi oo gudidii dhalinyarta sportiga qaybo kamid ah waxa ay maaragtay si raganimo leh u wadaan hawlihii garoonka gudihiisa waxaan maanta ku daadinaynaa taayirkii rooga dushiisa si maxay haydan ay maaragtay quruxdiisu soo baxdo una maaragtay fadhiisto roogo kullay dadaaladii aan ka soo qabanaynay waa inihii ugu dambeeyay insha Allah hadda waa naga gabagabo kullay maalin dhow waan furaynaa oo xulkii maaragtay qaranka ee gobolka iyo koox kaleba waan ku ciyaarsin doonaa insha Allah bismillaahir kariim wixii ka dambeeyana waxaan bilaabi doonaa hadii Ilaahay raaho sidii aan xulalkii groupiska Syriyeeda ilaa wixii ka hooseeyay BCD aan maaragtay ugu furi lahayn ciyaarihii kolonada ah ay yeelan lahaayeen bulshada gobolka Awdal iyo cidii sporti ah maaragtay ay taabanayso garoonka maaragtay problemadiisa ama dhibaatooyinkiisu waxaan leenahay maanta wata wad arkaysaan umadu waxay ku xisaabtantaa qaarkood oo yiraahaan wixii sida ahaa waa la isticmaalay waa la cunay wixiina soo galay waxaan ku qabanay wad arkaysaan waan u jeedaan quruxdiisii garoonka in ay soo baxday oo maanta qof walba indhihiisu ay soo jiidanayaan wad u jeedaan runtii intii kale ee wax qabadada hadhay wax ku soo darsanaysana qurba joog noqoto ama gudaha dalka ha noqotee oo u furantahay inta kale iskuduwaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu baaq u diray cid kasta oo ku xayeysiisatay gidaarada garoonka meheradahooga in haddii ay ka qayb qaadan waayaan daayactirka garoonka laga wada masixi doono gidaaradaasi waxaana uu sheegay waana uga hadlay shirkadaan kullay waxaan ku tala galsanahay in kasta oo maaragtay hawsha intan gudaha uuni ay na mashquulisay inaan gidaaradan ay shirkaduhu iskaga maaragtay samaysteen xayeysiisadan inaan dib uga maaragtay masaxno cidii danaynaysa ee inay ku xayeysiisto wax doonaysaana ay wadada sharciga ah ee sportiga ee wasaaradda inay u soo maraan haddii Ilaahay raaho Jamaal Umar Tubeec telefishinka caalamiga SBS TV magaalada Boorama.